sida uu qorshuhu ahaa waxaa maanta ay ahayd inay bilaabato doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya si loo soo gabagabeeyo 28 bishan waxaase muuqata inuu dib u dhac u jiro waxaa socda dadaalo ay wadaan gudiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer gobol oo ay ku doonayaan in madaxda maamul goboleedyada ku soo gudbiyaan liiska musharaxiinta aqalka sare dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ayaa soo saaray habraaca xalinta khilaafaadka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna guddiga warqadan uu soo saaray uu ku sheegay 4 shuruudood oo looga baahan yahay cidii guddiga cabashada u soo gudbinaysa shuruudahaasi oo ay ka mid tahay qofka cabashada qaba inuu bixiyo lacagta diiwaangelinta cabashada oo dhan $3,000 maamulka koonfur galbeed ayaa soo magacaabay guddiga baarlamaanka ee qaban doona doorashada aqalka sare iyadoo maanta uu qorshaha ahaa inay bilaabato doorashada aqalka sare ee Soomaaliya dhanka kale maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta lagu wadaa inay soo gudbiso liiska musharaxiinta u tartamayso 8 kursi ee aqalka sare ee taala maamulkaas